Welcome to Maine Public News Connect, original news stories from Maine Public Radio, airing weekly in Spanish, French, Portuguese, Somali, and English. maalgelin islaami ah hoyla'aanta iyo xus loo sameeyey xasuuq intaas waxa ahayn qodobadii toddobaadkan ugu waaweynaa wararka maanta waa maalin jimcaha bisha agoostana ay tahay 18 waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah maxamuud xasan maalgelin islaami ah banki mayn laga leeyahay ayaa bilaabay inuu bixiyo maalgelin guri oo waafaqsan shareecada islaamka waxaana dhowaan kusoo biiri karaa hay-ado kale oo maaliyadeed shareecada islaamku waxa ay mamnuucaysaa in la bixiyo dulsaarka ama ribada iyadoo u aragta inuu yahay khiyaamo maaliyadeed hay-adaha maaliyadeed ee nidaamka islaamiga ahi waxay sameeyeen farsamooyin kala duwan si ay ugu hoggaansamaan shuruudaha islaamiga ah andrewscoggin banki wuxuu noqday bankigii ugu horreeyey ee mayn ee maalgelinta noocaas oo kalaa bixiya iyada oo ay durba ay ka faa'iidaysteen dhowr qoys oo nidaamkaas guriga ku iibsaday laga bilaabo dayrta bankiyada la wada leeyahay iyagana ee credit unionka loo yaqaano ee gobolka ayaa sidoo kale iyaguna waxay awood u heli doonaan inay deymaha noocaas oo kale iyaguna bixiyaan taasoo ay ugu wacan tahay sharci cusub oo dhowaan gobolka laga ansixiyey oo ay saxiixday guddoomiyaha gobolku janet mills oo nidaamkaas oggolaanaya maamulaha hadda bankiga andrewscoggin neil kelly ayaa isagu wuxuu sheegay inkastoo badeecadda noocanihi aysan dadka ku kalifi doonin inay bixiyaan dulsaar ama ribo haddana kharashka bankiga iyo qofka mulkiilahay ay mid lamida u noqon doonaan nidaamka caadiga ah ee awalba deynta lagu qaadanayay xiritaanka hoyga kumeel gaarka ah Portland waxa ay qorsheynaysaa inay u rarto ku dhowaad 200 oo magangeliya doon ah motel maxalli ah iyadoo hoyga kumeel gaarka ee magaalada ee dhismaha expo uu xirmi doono toddobaadkan tan iyo bilowgii faafitaanka cudurka covid Portland iyo magaalooyinka kale ee u dhowdhoway waxay isticmaalayeen mooteelada ama albeerkooyinka waxay u isticmaalayeen hoy degdeg ah oo ay dejiyaan magangeliya doonka iyo dadka kale ee iyaguna la kulma hoy la'aanta afhayeen haddaba u hadlay magaalada ayaa sheegay in ay rajaynayaan inay isticmaalaan mooteeladan ilaa muddo 1 sano maadaama ay kala shaqaynayaan ururo kale si ay qoysaska ugu raraan guryo muddo dheera in ka badan 1,500 oo magangeliya doona ayaa yimid magaalada Portland tan iyo bilowgii sanadkan hoy la'aanta magaalada Portland waxa ay sheegtay inay horumar kooban ka samaysay sidii hoy loogu heli lahaa dadka aan iyagu guryaha lahayn ee ku nool teendhooyinka magaalada oo dhan ku faafsan koox hawleed dhowaan la sameeyey ayaa isku dayaya inay hoy u helaan 54 qof oo aan guri lahayn oo ku nool meel u dhow Fall River ama webiga Fall agaasimaha adeegyada caafimaadka iyo bani'aadamka ee magaalada Portland ayaa isagu wuxuu sheegay in 12 qof oo goobtaas laga soo raray ilaa hadda loo raray guryo quman horaantii isbuucan waxaa magaalada ku yaalay teendhooyin gaaraya 228 kuwaas oo wax yar un ka hooseeya maalmo ka hor intii ay ahaayeen tiradu balse iyagu ka badan tira ahaan teendhooyinkii ay magaaladu tirisay bil ka hor xasuusta xasuuqa toddobaadkii hore in ka badan 60 qof ayaa socod ku maray faras magaalaha Portland si ay u xasuustaan xasuuqii ka dhacay xero qaxooti oo ku taala waddanka Burundi sanadkii 2004 sanadkaas in ka badan 150 qof oo qaxooti ah oo ka soo jeeda qowmiyadda Banyamulenge ayaa waxaa dilay jabhad reer Burundi ah munaasabadan haddaba ka dhacday Portland waxa ay kulmisay xubno bulshada Maine ee ka soo jeeda qowmiyadda Banyamulenge waxaana ka soo qayb galay dad ka kala yimid meelo kala fogfog sida gobolka Georgia iyo magaalada Toronto ee waddanka Canada ka qaybgalayaashu waxa ay sheegeen inay doonayaan inay aragtida dadweynaha u soo jeediyaan xasuuqaas kana digaan khatarta ay leedahay hadallada nacaybka ah meel kastoo adduunka ka dhacaanay aad nagala socoteeni waa Maine Public News Connect waad mahadsantihiin Thank you to our excellent community partners for supporting and contributing to this program. We are happy to collaborate on this project with the monthly multimedia publication Amjambo Africa, our official media partner. Maine Public News Connect has been made possible by individual supporters and foundations from across Maine, as well as Koo and Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, Maine Housing, and IDEX.
Maine Public News Connect is made possible by Ku and Patricia Ewan, committed to bridging cultural differences in our communities. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Hannaford Supermarkets, celebrating the diversity of its employees, customers, and communities, and committed to fostering a welcoming environment. Together, they're greater than groceries. Learn more at hannaford.com. Has paying your mortgage been a struggle since COVID-19? The Maine Homeowner Assistance Fund could help. You may be eligible for up to $50,000 in aid. Apply today at mainehomeownerhelp.org.